subax ka mid ah subaxaha caadiga ah ee shaqada isbitaalka loo soo galo ayaa waxaa dhacday in mid ka mid ah shaqaalaha nadaafadda xilligaasi ka shaqaynayay in ur sankiisa ay soo gaartay. bilowga waxa marka uu islahaa urtaniitii xogaha sidee markaasitii wax u jiraan shaqadiisu iska sii watay maadaama xilligaasitii nadaafadda uu u waday oo u kaxaynayay dhanka urta marka ay ka imaanayso mar walba dhankaasitii uu sii dhaqaaqo waxaa dhacaysay in urta sankiisa xilligaasitii ay kusii xoogaysanaysay ilaa heer uu gaaray in shaqadiisa uu wadin kari waaye. ugu dambayna markaasitii uu isdhaha bal goobtaniitii oo sankaaga urtaniitii badan ay ka soo gaarayso tag halkaasitii bal soo eg waxaa markaasitii jiro oo soo dhaqaaqay. waxaana marka uu yimaaday xilligaasitii meel baqaara oo alaabaha duuga ee isbitaalka xilligaasitii lagu xareeyo. albaabkiiyuu soo furay waxaa markaasitii uu islahaa halkaniitii xaywaan miyaa ku dhintay, urkaniitii aadka u xogan maxay tahay. xareerahayuu eegeegay isagoo markaa xilligaasitii wax badan oo dhiila ah aysan ku jirin oo islahay uun xaywaan unba halkaniitii ku geeriyoon karo si kale wax markaasitii uma jiri karaan. si lama filaan ah yaa indhihiisa xilligaasitii wax ay ku qabteen bac weyn oo meel ka mida baqaarka xilligaasitii dhex taalay. waa uu yaaba bilowgii waxa mar uu isdhahay halkan sidee markaasitii wax u jiraan, ma aan goob babliga oo wasaqda halkaniitii lama keeno, isbitaalka iyo gaar u tahay alaabihiis unba halkaniitii duugaa lagu xareeyaa, sidee markaasitii wax u jiraan. isagoo xoogaha shaki fara badanna uu ku jiro yaa waxa uu u soo dhaqaaqay bacdii halkaasitii halka ay baqaarka markaa ka dhex tiilay. bacdii markii uu dul yimid urtii aadiyuu markaa u sii xoogaysatay. bacdiiyuu furay waxaana indhihiisu marka ay qabteen in halkaasitii uu ku arkay arrin aad uga argagaxayo. qof inta la qabtay laba cad jirkiisa markaa loo kala jaray, laba qayb yaa loo kala saaray oo dhexdayaa qof aad looga burburiyey uu ahaa. waa uu naxay waxaana markaa uu sameeyey inuu qayliyo isugu yeero maamulkii iyo shaqaalihii isbitaalka. goobtii marka ay yimaadeen maamulka arrintan lama filaanka ku noqotay in meyd halkaniitii la keenay, weliba qof jirkeeda laba cad loo kala jaray, qof haweenayay ahayd. waa ay la yaabeen. durba booliskii yay la xiriireenoo isbitaalkan xilligaasitii waxa uu ku yaalay magaalo lagu magacaabo Benghazi oo dalkaasitii Liibiya ka mid ah. booliska isbitaalka marka ay soo gaareen meydkii markaasitii eegeen. meydka qof ahaan markaa boolisku waxa xilligaasitii uga qiyaasnaay gabar 22 jir ah, si markaa aad u bahalsan loo dhibaateeyo. wejiga wax midabkeeda bedelayaa looga shubay. dhaxda marka laga kala jarayana boolisku waxa markaa u sawirantay in qof si xirfad qofkaniit u kala jaray inuusan samayninoo qof cadaawad fog u qabay in marka qofkaniit uu dhibaateeyey halkaasitii booliska ay ka diiwaan gashteen. sababtan waxa ay ahayd in lafaheeda dhabarka marka dhexda laga kala jaraaye aad yaa markaa loo burburiyeyo, qof walxihii markaasitii lagu jarjaraaye aad loogu celceliyey iyo markaasitii u ekeed. booliska xubnihii markaasitii maamulka isbitaalka iyo wax ka wareysteen xog fiican xilligaasitii kamaysan helin. waxaana baaritaanadooda booliska marka ay noqotay in ay isweydiiyaan bal maadaama hadda haddii oo baaritaan dheer ay galaanoo faylal iyo waxbaan baarayna ay dhahaan waqti dheer ayay ku qaadanaysaa. laakiin xoogaa bointiga xilligaasitii waxa ay iska tuseen in marka aragtidooda ay bal u dhoweyn karto haddii bal ay baaritaanadooda ay ku dabaqaan xilligaas xilliyada u dhow dadkii markaa la waayey ee booliska loo soo sheegay akhbaartooda in feelashii markaasitii dib ay u furaan. feelashii yaa dib markaasitii loo baaray. bishii afaraad ee sanadkan 2026 iyo arrintaasitii dalka Liibiya ka dhacday. waxaa dhacday inta baaritaanada markaa diiwaanada booliska ay qoreen oo dadka la waayey ay baarbaarayeen yaa waxaa markaa ka soo horbaxday gabar Caaisha la dhaho 22 jir ah, xubnaha qoyskeedana ay weysan yihiin ilaa iyo waqti. in markaa fariintaasitii diiwaanka booliska ay ku arkeen mid ka mid a feelasha halkaasitii yaalla. wax markaa ay durbadiiba la xiriireen qoyska, waa la ballamiyey. waxaana markaa ay booliska ay yimaadeen saldhigga waalidka Caaisha. xilligaasitii lala yeeshay waraysi, su'aalayaa markaa la weydiiyey. hooyada Caaisha dhashay yaa markaa durbadiiba boolisku wax su'aal ay weydiisaa waxay ahayd gabadha aad haysaan qof sidee waa markaasitii. waxa markaa iyaga la weydiiyey waalidka la dhahay adinka gabar sidee markaasitii aad idinka maqan oo aad soo sheegteen. waxay dhaheen waalidka aniga gabadhiina waaba sheegnay 22 jir waaye, muddo ilaa ay xoogahana waa weysannahay. booliskuna waxa markay dhaheen anigana meydka aan hayno qof 22 jir ah, gabar yaa markaasitii aan haynaa sida marka aan ku qiyaasnay. hooyada Caaisha yaa xilligaasitii wax ay ku adkaysatay booliska in gabadha marka ay tusaan. maxaa la lahay haddii aan ku tusno xitaa ma garan kartidoo
gabadhanayti la dilay wejigii waa laga bedelay jirkeedii laba cadiyaa markaa loo kala jiray oo wejiga haddaa laga aqoonsan kari lahaay qof la aqoonsan kara ma ahane waa uun baaritaanada markii aan dhammayno wixii markaasiti akhbaar aad ogaan doontaa laakiin caaisho hooyadeed xilligaasiti waxa ay ku adkaysatay aniga gabadheeda hala i tuso laga yaabay inaan aqoonsan karo haddii markaa meydkaas gabadheeda uu yahana waa idiin sheegaya hadduusan ahaynna maba ahanoo markaa baaritaanada waa iska sugeynaa xilligii marka ay soo baxaan oo kale waxaa markaa la soo kaxeeyey hooyada caaisho waxaana la dul keenay gabadheeda meydkii markaa la dul keenay gabadha markaa caaisho hooyadeed marka ay aragtay gabadheeda waxaa durbadiiba booliska marka ay ku tiri gabadhanayti waa gabadheeda waxaa la weydiiyey sidee markasiitii ku aqoonsan kartaa oo aad ku dhihi kartaa gabadhanayti waa gabadheeda waxay tiri haddii xitaa wejiga laga bedelay aniga wax marka aan ka aqoonsaday gacmaha faraheeda yaan aqaanaa oo gabadheeda waayo gabadhanayti waxaana booliska marka hadalka kumaysan qancin bilowgii oo caaisho hooyadeed marka ay tiri marka gabadheeda ay aragtay waxaa markaasiiti loo madliyey in DNA xilligaasiiti tijaabo laga qaado si loogu barbardhigo meydkii gabadha waalidkii caaisho hooyadeed iyo aabaheed yaa DNA-da laga qaaday tijaabadii waxaana markaa loo barbardhigay tijaabada DNA-da laga soo qaaday caaisho waa ay is yeesheen boolisku haatan marka waa ay ka qanceenoo waxay isku heleen hata hal raadoo meydkaniiti oo meel ay u raacaan ay garan kari weysnaayeen iyo xilligaasiiti albaab waxa u furmay in booliska ay helaan meel markaasiiti ay ku xiriirin karaanoo wixii baaritaanoo kalena marka xoogaha jidya u furmay oo usii fududaan kartayo xilligaasiiti booliska rajiya u soo muuqatay waxaa markaa dhacday in su'aalo badan xilligaasiiti la weydiiyo waalidka caaisho su'aalaasiiti waxaa markaa ka mid ah baaritaanada intii markaa la hayay gabadhiina wax cadowa oo ay leedahay ma garan kartaanoo ka dambayn karo in qof sidaaniti marka uu dhibaateeyo waalidka caaisho waxay dhaheen aniga gabadhiina wanaagyaan ku naqaanay wax dhibaato haatan qof marka aan u saarin karno qof cadaawad gaara ay kala dhexaysay ma jirto oo annaga gabadhiina wanaag gabadh iska afgaaban shaqaysato gurigeedana markaa waqtiyada ay firaaqada leedahay joogto yaan ku ognahay oo qof haatan dhib badanoo ma u garan karno in dad markaa dhibaato ay kala dhexayn karto booliska wax markaa ay su'aal kaloo ay weydiiyeen xilligaasiiti ay noqotaba maalinnimadii aad gabadhiina weynayseen yaa la dhaha waalidka caaisha maalinkaasiiti xaggee u baxday waxay markaa ay tilmaameen waalidka caaisho in gabadhooda maalinimadaasiiti ay u madalsanayd waraysi shaqo subaxnimadaasiitina iyadoo xoogaha rajo qabto ay guriga ka baxday shaqadaasiitina hami ay ka lahayd waxa boolisku markaa ay waalidka sii weydiiyeen oo ay dhaheen goobta ay aaday manoo tilmaami kartaan haayalahay waa loo tilmaamay waa ay baxeen booliskuna waxa ay tegeen goobta maalinimadaasiiti shirkadda ay shaqada kaga madalsanayd caaisho waraysiga iyo tegeen maamulkiiya xilligaasiiti la waraystay waxa la weydiiyey in gabadha siiti caaisho goobta siiti ay maalinimadaas u gaartay maamulku waxa xilligaasiiti booliska ay u sheegeen in caaisho aysan u imaanin saxna ay tahay oo waraysiga halkaniiti maalinimadaasiiti ay kula qornayd laakiin ilaa haatan wax akhbaara markaasiiti aysan ka haynin booliska wax xoogo badan halkaasiiti kamaysan soo helin waxa markaasiiti dhacday in markaan booliska dhan kale ay u rogaan arrinka waayo waxa marka booliska istusayeen albaabadii ugu muhiimsanay maadaama ay soo xirmeenoo isbitaalkan xoog aysan ka soo helin sidoo kale shirkadda caaisho waraysiga maalimada siiti ugu madalsanayn wax xooga aysan ka soo helin waalidkii ay leeyihiin qof cadaawad gaara ay kala dhexayso caaisho ma garan karno meelihii ugu muhiimsanay markii booliskii ka soo xirmeen waxa marka ay noqotay in markanayti dhanka kaamiradaha ay u jeestaan waxay ka bilaabeen kaamirada xilligaasiiti u dhawaay goobta baqaarka isbitaalka wax markaasiiti lagu keediyo iyagoo wax uun ka baarbaarayo in ay ogaadaan bacdaaniiti goormaa la soo geliyey yaa soo geliyey wax caddayna marka kamaysan helin kaameradihii u dhawaa xilligaasiiti meesha baqaarka ee isbitaalka alaabaha marka uu ku keedsado waayo qofkan caaisho soo dilay ee halkaasiiti keenay waa uu ka baaraan degay in markaasiiti la aqoonsado xilli koley uun ay si gaara usoo qorshaysatay qofkaasiiti yaa waxa ay la soo beegsatay in halkaasiiti ay soo dhigtay meydka kaamiradaha wax caddeynoo gooniya xilligaasiiti lagama arkin waxaa dhacday in booliska markaa ay maalinimadaas haddana ay dhan kale u fiiriyaan oo ay ka soo bilaabaan bal guriga caaisho gurigeeda markii ay ka soo baxday xaggee markaasiiti qabatay sidii markaa ay arrinkaniiti oo lagu waayey si caddayna booliska marka ay u helaan kaamiradaha
xilliga city wadooyinka hareeraheeda ku dheganaayay maalimada city waxay u soo qabteen booliska marka ay baaritaanka ay fiiriyeen kaamiradaha Caaisho oo si caadiya gurigeeda kaga soo baxday iska soo lugeynaysaba oo aan wax gaari xilliga city aanan soo qaadanin Caaisho waa ay soo socotay kaamiradaha xilliga city waxa booliska ay ka filanayeen inay ka dhex arki doonaan qof Caaisho wadada markaa ka kaxaysta ama iyadoo laga afduubanayo wadadoo kale ama si loo qasbayo halka city laga kaxaystay in kaamiradaha ay ka arkaan booliska ay filanayeen Caaisho si caadi oo nabadeedii iskaga soo socotay keligeedii ahayd waxa markaa ay soo gaartay guri oo albaabkiisa markaa ay gargaraacday xilliga cityna waxa guriga kaga soo baxay qof in shareer wato xijaaban oo aan la aqoonsan karin habi is siiyeen wax yar ay sheekaysteen waxana ay u muuqdeen Caaisho ee qofka sidii guriga kaga soo baxay dad is yaqaano isku qanacsan marka inay yihiin wax dhibaato badan aysan ka dhaxaynin gabadhan oo lagu magacaabay Zainab waa gabadha guriga kaga soo baxday Caaisho albaabka ka furtay ee habsiisay wax yarna intee la sheekaysatay gudaha guriga gashay waxana Zainab arinkani u sii tala gashaba in aanan la aqoonsanin oo xataa banaanka markii u soo baxdo kaamirada hadii xataa ama dad wadooyinka maray hadii la wareystay xitaa waxay ka fikirayso ay islahayd yana lagu aqoonsanin oo wajigana way soo daboolatay iyada dhanna marka xijaab ay soo gashatay oo dhar iyada dhan wada qarinayo waa ay wadatay booliska waxa marka cadeyntan ay u noqotay gurigaas city in ay tagaano bal halka city ay ka ogaadaan sida marka city wax u jiraan waa ay bixeen gurigii xilliga city yimaadeen oo waa ay gargaraaceen milkiilaha guriga iyana raadiyeen oo waa ay heleen waxa la weydiiyey kaamiradii yaa milkiilaha guriga inta la tusaa waxa lagu dhahay qofkan ma garan kartaa oo guriga ka soo baxay guriga waxa marka uu dhahay aniga rag yaa guriga ka kireeyay qoftan qof dumar unbay u ekaan kartaa oo waa isleeyihiin waxa marka la weydiiyey adi qof dumar guriga ka kireysan ma jira waxa uu dhahay hal qof yaa guriga ka kireeyay qoftaas dumarka unbaana isleeyahay waa ay ka dambeyn kartaa falkaneeti dhacay gabadhan Zainab falkaneeti geysatay Caaisho iyada qaraabo dhawiyay marka city yihiin Zainab waa la soo dabagalay waxa marka city dhacday maadaama xogta guriga qofka ay ka kireysatay uu bixiyay in si fudud marka city lagu soo qabtay Zainab waa yaabtay bilowgii waxa marka ay istiri sidaneeti fudud in booliska durbadiba ay kugu soo qabtaan sidee marka city ku suurta gashay laakiin ma ogsoonin in boolisku ay soo daba kaceen kaamirada ilaa gurigii ay deganeedo ay kireysatay qolka ka kireysatay in inta markaas Caaisho kaamirada lagu arkay inay soo gaartay halka city laga soo dabaraaco milkiilaha gurigan xogteeda uu bixiyay waxa marka city la weydiiyay sidee marka city wax u jiraan maadaama haatan gabadhaneeti Zainab dhanna aysan u baxsan karin waxa marka ay dhacday in sababta waxaneeti u sameynayso dhan booliska runta marka ay kaga sheegto waxay tiri anigii Caaisho yaraantiin waa isla soo barbaarnay dad isku wanaagsanna waa aheenoo waqtiyo badan oo wanaagsanna marka waa isla soo qaadanay markii aan weynaanana dad meelo kala duwan ka shaqeeyay xilliga city waa aan ahayn Caaisho waxa ay dhahday arintaneeti wax uu dilo u dhibaateeyay in ay iga dulqaaday nin aniga marka city aan jeclaa boolisku wax marka ay weydiin sidee marka ay kaaga dulqaaday Zainab wax marka ay tilmaamto ay dhahday ninka Caaisho haatan waqtiga u dambeeyay ee la socotay aniga iyo bilowgii xiriir ila lahaa waqti kadibna Caaisho yaan baray Caaisho markii ay isbarteenna ninka waa uu iga wareegtay Caaisho uu ku wareegtay Caaishana maadaama meelo isku dhow aan ka shaqayn jirnay xataa xilliga city waxa ay samaysay dhahday in ay iga fogaato wajigeena marka uu kala qarsoomo aniga nacay fara badan yaa xilliga city galay maadaama ay Caaisho ninkii igala wareegtay waxaana aan go'aansaday qaab walba oo aan u dhibaateyn karo in marka city aan u dhibaatay xitaa waxay dhahday markii ay ninkii igala wareegtay aniga iyo Caaisho Zainab yaa dhahayso waqti marka ma xiriirkeenu ma uu wanaagsanayno xiriirkeenu waa uu kala go'ay dad isku wanaagsanna maadaama hor aan u ahaan jirin laakiin waqtigii marka city dhibaatada aan geysanayo waqti yar oo ka horeeyay aad iyo marka city isugu xumeen isma xiriirin jirin xitaa maalmaha kamid ah yaa waxa qorsheeyay dhahday in aan intaan waco aan dhaho Caaisho aniga marka city ii waran xaaladaada ka waran bal noloshaadii maxaa maalmo muddo ismaana maqlin sidee marka city wax u jiraan waxay tilmaamtay oo ay dhahday Zainab xilliga city Caaisho waxa ay ii tilmaamtay in ay iska degan tahay oo ay wanaagsan tahay shaqadoonna marka city ay tahay biri
ay shaqo markaa shirkad waraysi kaga madalsan tahay Zainab waxay tilmaamtay ay dhahday waxaan dhahayba anaa shaqo wanaagsan kuu haayo haatan waxba kuu soo wacay xitaa shaqada sidii wanaagsan oo mushaarka fiican aad ku heli karto maadaama dad xoogaa waqti isku xun ahayn adiga inaan kugu raaligeliyo oo xiriirkeeni dib aan ugu soo celiyo yaa markaa sidii kuu soo wacay berito waxa markaa sidii aad samaysaa isoo mar anigana markaa si markaa shaqadaani xogteeda aan kugu sheego Aisha xilligaasii waa ay ku faraxday in Zainab ay dib u soo xiriirisay walaasheed oo qaraabada ay ahaayeen isku dhow waxaana markaa ay istiri haatan qalbigeedu waa uu soo fiicnaaday Aisha waxa markaa xilligaasii Zainab ay ugu jawaabtay hay waayaha berito adigaan kugu soo hormarayaa aan ku imaanayaa shaqada ay heesaan isla fiirinayna kadibna waxa markaa aan sii aadaya shaqada kale waraysiga aan ka leeyahay sida sidii markaa lagu kala tagay Zainab gurigan ay kireysatay xitaa qolka ay ka kireysatay ma ahan guriga iyada sida rasmiga ay u degan tahay iyada ay xubnaha qoyskeeda guri kale oo gooni ah ay deganaayeen laakiin gurigan oo milkiilaha marka uu iskala uu sameyn jiray in dad kala duwan uu ka kireeyo rag yaa guriga dhan wada deganaayo iyada qol kaliya markaas ay tika deganeed milkiilaha markii guriga ay ka kireysanaysa Zainab waxa ay sheegtay inay u sheegtay in aysan doonaynin in ragga markaas ay kasoo ag dhawaadaan qol si gaar ah markaa guriga meel koona yar u soo xigo yaa la siiyey oo si markaa ay ragga kale ay waxa markaa ay tiri anigu raggii inaan u dhadhawaado ma doonaayo xogteedana markaa waa ay siyaro wareysteen oo gurigu markaa waa laga kireeyey Zainab qolkaas waxa ay ugu talagashay Zainab in walaasheed markaa Aisha qaraabada dhow ay yihiin in xilligaasii markaa ay ku dhibaatayso halka ay ku disho Zainab maalimada sidii waa ay isdiyaar gareysay dhacday Aisha oo qabar moog ah in guriga markaas ay iska timaado Zainab waxa ay tilmaamtay albaab markii ay ka furtay sida kaamiradaha ay muujinayaan maadaama dad hab is siiyay oo gudaha guriga wada gala ay ahaayeen waxa ay tiri waxa aan ku dhahay wax markaas aan dharkan soo bedelanayaa oo kala gudaha markaas iskaga soo gudub wax yarna markaa waa is wada raaci doonaa oo dharkan baa soo bedelanayaa sidaas ay gudaha u galiyay dhahday Zainab Aisha waxaana Zainab xilligaasii ay sii tilmaamto ay dhahday waxa aan siiyey cabitaan aan wax ugu daray xilligaasii siiyay dhahday waxaana Zainab ay ka dhawaajisay in Aisha cabitaanka ay wax ugu dartay qof miirkeedu uu ku bedelma ay noqon kari weysay maadaama ay Zainab raagsatay arinkaaniiti Aisha in weli markaa ay soo jeedo ay ka yara baqanaysan in Aisha ay tiraahdo haddii aan waqti xoogaa kula joogay waan baxayaa oo shaqada sidii kala wareysigeeda waqtigeeda ilaalinaya arinta Zainab iyadoo xoogaa yara ka yara baqaysiya wax markaa dhacday in ay si gaadma intay gadaal kaga timid Aisha markaa iska fadhiso maadaama Aisha aysan dhib badan ka filinayn walaashii Zainab waxa ay samaysay in bir xilligaasii madaxa ay kala dhacdo Aisha waa ay miir beeshay dhulkii markaasii ku dhacday waxaana dhacday in ay dhaawac aad u daran madaxa ay ka gaarsiisay Zainab Aisha markii ay hubsatay in Aisha ay xoogaa soo kici karin oo ay aad u dhibaataysay yaa waxa dhacday in guriga markaa intii ku soo xirtay qolka ay baxday kaamirada waxa markaa ay tilmaamayeen in ay wax doonatay waxa markaas ay dhacday kaamiradii markii la daba kacay in ay tilmaameen in dukaan ay tagtay bac ay ka soo gadatay iyo sidoo kale baangad ay ku jarjarto iyo faas gabadhaneyti walaasheeda ay Aisha waa ay soo laabatay booliska maadaama haatan cadaynta ugu weyn ay haayaan weli wareysiga Aisha su'aalaha waxa la lahay u sii wado waxa markaas ay dhacday in ay sii tilmaamtay Zainab oo ay tiri markii aniga aan soo laabtay Aisha wax markaas aan ku sameeyay maadaama hore aan guri wax ugu sii diyaarsaday Zainab ashiya oo dhiiga urtiisana markaa tirtiri karto wajigana inaan uga bedelo Aisha aan doonaya yaan soo keedsaday dhahday waxa markaa aan sameeyay Aisha oo xilligaasii markaa miir dorsoon in halkaasii markaa aan ugu soo laabtay xilligaasii dhaxda aan ka kala jiro oo si bahalnimo markaasii aan lafeed u jijibso wajiga ya xilligaasii wax aan sameeyay dhahday in wax ka bedelayo kala kiimika ah aan wajiga kaga shubo si gibi ahaanba markaasii aan loo aqoonsanin waxay dhahday markii aan kala jaray culayskaas ma qaadi karin ee dhahday Zainab xilligaasii waayo xoogaasii ma bahayaba ay tiri aniga Aisha aan ku qaadi karo oo aan meel ku geyn karo wax aan sameeyay dhahday xilligaasii in yar xiriir hore markaasii igala dhaxin jiray oo aan kala harnay oo isku xumaanay
intaan dib u xiriiriyo aan xilligaasiti ku dhaho waxa markaasiti aan doonaya inay caawiso horena waan kuu xumeeyaan dhahday waan ku raali garaynayaa haddana waxa marka aan u rajiyo kale aan u muujiyo dhahday Zainab ninkaasiti in xiriirkiina marka aan doonaya inaan dib u soo celiyo yarkaas oo ii riyaaqay dhahday oo isagoo marka inuu doonayo i caawiyo yuu ii yimaado waqti marka aan balamiyey waxaana markaasiti aan u sheegay in alaabtaniti uu ii qaadayo meelna markaasiti aan geyn doono waa uu gaariyuu soo qaaday dhahday waxa markaasiti uu sameeyey in bacdiina uu ii qaaday xilligaasiti waxay dhahday goobta aan isku dayay in markaa aan geeyo waxa ay ahayd goobtaniti isbitaalka oo baqaarka marka alaabta marka loogu keediyo meel koona ah oo xoogaha kaamirada si fiican aysan u qabanaynin yaan ka soo maray dhahday sidaasiti yaana markaa gudaha albaabka markaa baqaarka intaan ku galay yaan bacda xilligaasiti aan ku dhex dhigay arrinka sidaasiti markaa u jira waxaana Zainab xilligaasiti ee sii tilmaamto ay tiri markii aan ka soo laabtay xitaa oo wadada intii markaa aan ku soo soconay yarka waxa markaa aan u muujinayay jacayl iyo wanaag iyo inaan markaa ku faraxsanahay inaan dib u soo laabanay waayo ujeedkaygu waxa aan ka baqaya dhahday in su'aalo uu iga weydiiyo ama uu iga shakiyo alaabtaniti markaa maxay tahay alaabtan aan qaadnay maxaana halkaasiti u geyn waxba imuusan weydiinin dhahday sidaasiti marka arrintaniti idil ay booliska markaa xogteeda ay ku heleen Zainab haatan waxa markaa arrinkeeda uu yahay maxkamad suge kiiskeeda in maxkamadda go'aan kama dambaysa ay ka gaarto waxa xukun markaa lagu ridi karo Zainab maadaama ay qeyratay in gabadhaasiti qaraabada dhow ay yihiin iyadoo markaasiti ay dhibaataysayo noloshana marka ay dhaafisay arrinkaniti waxa markaa uu noqday xitaa in Caaisha qoyskeedana ay ka argagaxaan sidoo kalena dadka markaa Zainab yaqaanana ay aad ula yaabaan arrinkaniti maqlay booliska xitaa naftirkooda waxa markaa ay ku noqotay arrinkaniti mid naxdinteeda leh waxaa u rajeynaysaa in Zainab maxkamadda go'aan ay ka gaarto xukun caynkay jeclaan lahayd marka in lagu rido qaybta faalada aragtidaada markaasiti noogu reeb haddii halkaniti aad naga soo gaartana waad ku maadsantaa waqtiga muuqaalkaniti daawashadiisa aad ku bixisay haddii aad jeclaysanayso qisooyinka sidaan oo kale si aan usoo badinana fadlan nagu taageer in muuqaalkaniti aan laygaraysiyo share garayso si janalka u faafo meel dheer uu u gaaro ogana mid noqoto dadka janalkaniti kobiciisa kaalinka qaato waad ku maadsan tahay markale daawashada muuqaalkaniti aad ku bixisay muuqaalkan muuqaalka ku xigaya noo balana iyo qiso kale cusub